وسعودية هلك وحاس ويكاد عيان وهلك اللو حشتغي حرم كي ربي جنو كويا لي حاجي سلك كوها ساقي صدعن ياسي كدم بعيه موقال كان كله وذا جاي هيجي دقدقن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام يا جودهان شعب كصومالي يدو ملك السودان ذا أكيد جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يعني ونبضي عاف ماذا قبنا الربي جن أمر كله دي بنو كل سيء سجى ما حد عصيه إذا الأسقناتي أنت دبن الله كدر قاضو أنت يسوق توصلت هنا الله بركيه نبينا عليه الصلاة والسلام له أم كودا صلنا أدب أمها سنتين سود وهذا والله ليال سيده الرعب برنامج كي جماعة كسو عرقتين أرنتن وحي كد عضي ودنك السعودية العربية ولي وحي كد عضي هلكي حرمك أي كد عضي سيده الله سعوتان سعودي قد عذوين آد أكل الدول ورنتي معجزات oo dadka banaanka jooga waxay ka aaminsan yihiin aanan ahayn ayaa inta badan ka dhaca waana ogtihiin sanadii ugu dambeeyay Saudi Arabia wax lagu soo kordhiyay in kala biyo laga furay in meel badan oo khamriga lagu cabo laga furay in hoteeladii xitaa qaarkood la yiri maxay ay too ninkii iyo gabadha isla socda ee hotel kireysanayo lama weydiin karo maxay ay too ma isqabtaan isma qabtiin iyo warqadii nikaaxa keenay iyo sheekada ma jiri doonto waxyaalo fara badan oo markii hore Sacuudiga mamnuuc ka ahaa ayaa sanadii ugu dambeeyay loo ansixiyay oo la yiri maya hasa la sameeyo wala wada socotaano idinkama qarsoona waya waxa la socotaan oo kale inta badan Saudi Arabia meelaha dhibaatooyinka ugu ba'an ay ka soo gaaraan gabdhaha Soomaaliyeed iyo kuwa kale Afrikaanta dariska inala ah ay ka soo gaaraan Sacuudiga inay noqday kufsi aan lahayd iyo hadii xuquuqdii ay lahaayeen in la duudsiyo ay aan lahayd intaba waa ka warqabtaan oo waa la wada socotaan waxa kale to la wada socotaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo macnaha waxa weeyaan aad ogtihiin oo qaarkood codad laga soo duubay in Saudi Arabia 2025kii bartamaheedii xukuno kala duwan oo dilal u badan ay ka soo saareen isla markaasina la yiri dil toogasho ayaa lagu xukumay dhalinyarada qaarkood muuqaalo ay soo duubeen ama codad laga soo duubay oo baraha bulshada la soo galiyay waxay ku sheegeen dambiyada lagu eedeeyay ee xukunka dilka loogu xukumay badankood inay ahaayeen been abuur laga sameeyay ee macnaheedu ay ahaayeen wixii xun oo dhanba xaawo ayaa leh ee dusha laga saaro miskiin ayaa miska la fuulo leh ayay ku soo gabagaboobantay walow dawladda dhexe Soomaaliya safaaradii iyo qunsuliyadii Soomaaliyeed ee wadanka Saudi Arabia ay afki Sacuudiga ayuu ku hadlayay ayna soo halfariisteen waxa la idinkaga sheekeynaya ma ahan arrimahaas oo dhan oo baraha bulshada ay ka wada buuxaan oo wada aragteen way hanu soo daadega marka muuqaalkayga waxa la socotaan muuqaalkan aad arkaysaan waa idin sii doonaa muuqaalkan aad arkaysaan wuxuu ka dhacay Sacuudiga waxaan aad arkaysaan nin baa qoorsagaaro lagu hayaa qoorsagaaro caadi ah ayaa lagu hayaa waxa lagu leeyahay ninkan marada cad ee sii jeeda waxa qoorta ka haya oo ku dhagan oo deheer uu suuxo dhulka ku dhacay la gaarsiiyay inuu dhinto oo naftu ay ka baxdaba waan halkii la joogo halkii xaramka waa wiilkiisa lagu leeyahay waxa qabanaya ninka oo garbaha tagtaaganna waa askar Sacuudiyana waa la socotaan Soomaa waa arkaysaan waa askar Sacuudiyana waxay ka dhacday Saudi Arabia bal dhacdada qaabka u dhacdaan ayaan u godo galinaay hal mar ila dhageysta marka سؤالك ميسي إلا نكاس وحلا جارسينا يا نكا وحلا جارسينا هي نلك وكدعو نلك إنه كدع على جارسينا وكا سؤالك ميسي هير وحلا جارسينا يا نلك وصوتابته حدوا وحي حنو دنبا حاوة أياله أنا وجيت كي قال كاسوح وحي حنو دنبا حاوة أياله أيان مركو سوق لنا واسكيف هم كرتان ماشي أنا وجيدو قبل بدأ كصومالي ده له هدي لأركو أما إريتريان با وركودو ما إريتريان با ما السودان با ما إثيوبيان با ما قوليان شات حاجة دقن با السودان تأكتي هذا دقن با إن اللهم استعان ما أفريكان تنكلا مدب أهانتا نوجو إقبا السويدين ما يسلم مركب وحلوش عبدين عيا قبل ده صير صوماليته معناها dhibaatooyinka ummadeena Soomaaliyeed haysta idin sheegaya wax alla la wixii la arko Soomaali baa dab lagu siinaya waxa la fiirinayaa kaliya midabka qofkan uu yahay gabar waxaad arkaysaa dukaan intay gashay waxadaysa oo laakiin luqad kale ku hadlaysa English ku hadlaysa
waxaa leeyahay waa xalimo Soomaaliyeed wax kasta oo xun sidii Soomaali loola raadinayay maanta ummadda Soomaaliyeed ani passport aad wadato dunida markiiba midabkaagu uu yahay midab Soomaaliyeed cid doontaba ka soo jeeday ayadoon lagu hubsan isla markiiba waxa qofka u sawirmayo inuu yahay ninkan nin Soomaali airport ka rabta ka digtid isla markiiba waxa sawirmaysa dadkii immigrationada joogay markiiba waxa uu sawirmaya qofkan madow ee noocaana ee dhigiisa uu saa u furan yahay ee nooca uu yahay waa Soomaali baaritaan badan kadib markii la sameeyana waxa soo baxaysa qofkaas inuu yahay ama Eritrean ama Ethiopian ama qolyo kale ama Suudaanta in badan oo kamid ah oo anaga noo egbaa jirta lisweydiin maayo marka qofkani muxuu yahay soo marka in la yiraahdo wax kastaaba qof kasto anaga noo eg waa Soomaali gabar kasto dhibaato sameysay oo aan Soomaali ahayn midab ahaan laakiin aan wadaagno waa Soomaali annagii baa shaabada iskula kacnayo adduunka oo dhan wuxuu naga aaminay qof kasto noo eg hadii laakiin la yiraahdo waa Soomaali waaye muuqaalkan markii la soo dhigay waxa la arkay meesha lagu arkay maamada dharka noocaas wadata ayaa la arkay isla markiiba waxa la yiri waa Soomaali nin Soomaaliyeed ayaa aabihii bal fiiriya meesha shakada ka dhacday ninkaas waa nin Soomaaliya maxay ahayto waa meesha shakada loo rogaya hadalkayga yaan la bedelin ninka waa Soomaali wiilkiisa oo wadanka Sacuudiga joogay ayuu ugu imaaday kadib maxaa dhacay odayga ayaa wuxuu guursaday xaas labaad hadalka aad u dhigayso odaygan ayaa wuxuu guursaday reer labaad ayuu sameeyay macnaha islaan kale ayuu guursaday wiilkii islaantii bahaweentu ay dhashay baa intuu hooyadii islaam la maseeray aabihii xajka ku dhacday wallahi billahi taala adduunku halkaas soo maraya maanta wiilkiiba waxa lagu leeyahay intuu hooyadii la maseeray ayuu aabihii xaramka dhexdeeda ku dilay sideed hooyadii oo la guursan kartaa darteed markaas dadkii wax ma hubsanayaan alla waa wiil boqora gabdhii intay iska soo wada jiraan waa wiil boqora waa wiil hooyadii garab istaagay waa wiil hooyadii garab siiyay gabdhaheeni in badan oo xamaasadeysan oo macnaha nin xaas labaad sameeyay aan la tusi karin dhamaan intay commentidii ku soo daateen ba waxay leeyihiin alla waa wiil raga hooyadii buu garab istaagay alla wiilkan oo kala laga dhahaa maxay ahayto wiil wiil aan maseerin wiil maseer badan inta yab adduunka wax walbaaba marka anaga shaabad intaas kula qaadano jug waa Soomaali ku dhufa dhabarka la bardeesho waa Soomaali waa farax Soomaali waa xalimo Soomaali wixii oo dhan marka anagiiba shaabadii iskula kacnay oo macnaha wax weyn isku saxiixayno hadaba gabagabadii wiilkaasu Soomaali ma aha sababta loo yiri waa Soomaalina wax kala ma ahane waa maradaas maamada ay wadato dad badan oo waxa jira isku labis aan ahay oo xagga ciidamadaha oo kale iyo macawisada oo kale iyo ciidamada sida loo duubtay waa taqaanada Lebananiyiinta iyo qolyahan dharka qaabka u xirtaan waa ogtihiin oo wala wada socotaan soo marka lama fiirin qofku yey tahay isla markiiba waxa la shaabadeeyay wiil Soomaaliyeed inuu aabihiis ku dhex dilay macnaha inuu ku dhex dili rabay maxay ahayd xaramkii inuu ku dhex dili rabay waaya okay wuu dil rabay oo muxuu dil rabay al isweydiin mogta waxa la yiri aabihiis islaan kale guursaday oo hooyadii baa la guursaday wiilka oo intuu ka maseeray oo hooyadii isla maseeray ayuu aabi xajka iyo xaramkii intuu ku dhex sugay buuceejo nafta uga qaaday marka maamadaas dharka wadato awgeed baa sawirka loo soo qaatay laakiin ninka Soomaali ma aha qofkan teeda kale baraha bulshada wadamada carabta inta badan waxa lagu soo qorayaa wiilku diiqadoonayo macnaha waxa waaye ilaa meesha marka tagto jawi kala galaysaa macnaha kugu soo dhici mayso qof inaad disho baba kugu soo dhacsaba diiqada macnaha uu diiqadooday iyo marxabeen iyo farxad darteed iyo aabihii intuu isugu duubay ayaa laga fujin kari waayay sidaas macnaha barihi bulshada iyo wadamada carabta lagu soo wada qoraya laakiin de qoor sagaaran inaba caadi ahaan buu ku qabtay la odaygu uu dhulka ku dhaco la suuxo oo laga fujin kari waayo ayuu sameeyay wiilku inkastoo laakiin dadku ay leeyihiin waa marxabeen uu marxabeenay oo aabihii buu isku duubay uu ka fiqi waayay la leeyahay laakiin de sida uu sameeyay odaygu waa u dhiman karay markii xagga hoose loo soo dadego odaygu arinta waa u dhiman karay laakiin waxaad ogaataan oo aan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego wax kasta oo dhaca yaana ummadda Soomaaliyeed lagu tirin hal hubsado bal fiir meesha laga dhacay hadda okay kaba soo qaad wiil Soomaaliyeed inuu yahay
odayga qorsagaada lagu qabtayna oday Soomaaliyeed inuu yahay laba isdhashay inay yihiin ka soo qaad islaanta dharkaas wadata ee meesha taagneedna ka soo qaad inay hooyo Soomaaliyeed tahay ka soo qaad way maxaa loogu leexinayaa loo leeyahay xajkii waa abi ku dhex dil rabay wiil Soomaaliyeed oo abi xajka ku dhex dil rabay okay sababtu u dil rabayna hooyadii baa islaan kale la guursadayo sababtu u dil rabayna wax kale ma ahan aabihii baa islaan kale hooyadii la guursadayo maseer uu la maseero hooyadii darteed ayuu aabihii xashka dhexdeeda ugu dilay bal fiiraade meesha lagala dhacay gabdhaheena waxba ma hubsane halkaas ay commentiyadii la soo dhaceen oo ku dhaxgal gasheen oo ugu mahad celinayeen wiilka odayga nooca u galgalanay warbal gabaray haduu aabaha ahaan la ka war aabaha ma jeclaan lahayd in si loo galo waa maya soo marka wax kasta oo xun oo la arko yaan ummadda Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed lagu shaabadeen oo annaga yaana shaabada isku noqonay hal hubiyo muuqaalada intaana soo share gareena ka hor aad baa u mahadsantiin intaan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh